maanta wuxuu ku bilaabmayaa habeen madow oo cirka isku jiro halkaas oo cirka uga soo dhacaya faras sixir wata kadibna waxa uu ka burburinayaa beertii. odaygii Johana aabihii ayaa soo baxaya waxaanu garaacay ciyaalkiisa ayaan isugu yeedhay waxaanu odhanayaa beertan subax kasta iyo dumiye isku kaalaya isla markaa isagoo isugu yeedhay saddexdii ciyaalka waxaana uu ku odhanayaa beertan subax walba cid baa dudubisa waa in la ilaaliyaa. kadibna waxaa loo dhiibayaa beerta Johan waa wiil yar oo baari ah kadibna isaga ayaa lagu odhanayaa beerta ilaali. habeenkii dambe isagoo beerta ilaalinaya ayaa uu hal mar faraskii soo galaya isla markaana waxa uu yaabaya isla markaa waxa uu sameynaya xadhig ayaa uu ku qabanaya waana uu yaabay waxaan odhanaya wax weyn waa haytalo kadib faraska iyo xadhig ayaa uu ku qabanaya isla markaa isagoo meel sare koraya ayaa uu koraya waxaana uu soo jiidaya xadhigii faraskii ayaana uu soo jiidaya xooggiisa kadib waa ka baxsanaya faraskii isagoo weelanaya ayaa uu soo jiidaya haddana isla markaa faraskii waa uu ka baxsanaya waxaana uu sameynaya faraskii meel ayaa ugu dhexdhacaya waana uu yaabaya kadib xooggiisa oo dhan ayaa isugu geynaya waana dhulka ayaa ku dhacaya kadib waa uu soo kacaya waxaana uu arkaya faraskii oo meel dhiiqa ku dhex dhacay kadib faraskii ayaa uu soo jiidaya waana uu kasoo saaraya kadib isla markaa uu faraskii kasoo saara meesha kadib mashiin kale iyo agab kale ayaa uu doonanaya xoog badan iyo itaal badan uu isugu geeyo ugu dambeyntii faraskii ayaa uu kasoo saaraya meesha isagoo itaal iyo xoog waxaayib isugu geeyey faraskii dhiiqadii marka uu ka saar way wada hadlaya kadib faraskii ayaa ka tegaya waxaana uu kacaya xagga iyo samada. faraskani waa faras sixir la saaxiibayaal waana uu yaabayaa saaxiib isla markaa isagoo afariirsan isla markaana waxa uu dhex seexanaya xaradii adhiga. subaxdii dambe ayaa isagoo meesha jiifaya oo hal mar indhaha kala qaaday waxaanu arkaya laba faras isla markaa labadii faras isagoo la yaabanaya waxaanu arkayaa faras yaroo gaaban isla markaana waa uu si yaab indhaha kala qaadaya faraska ayaa soo dul istaagaya isagoo yaabanaya wuxuu odhanaya maxaa dhacay talo waxa qaldan kadibna faraska yaraa ayuu soo kaxaysanaya labadii faras ayaa madaxa u salaaxaya isagoo aad iyo aad ugu faraxsan faraska yaraana oo la hadlaya kadib waa uu qoslaya isagoo dhoola cadeynaya odaygii weynaa aabihii ayaa beertii la burburiya arkaya odaygii weynaa aabihii ayaa xanaaqaya isla markaana waxa uu sameynaya waxa uu kaxaysanayaa labadii faras isagoo isla markaana isla u iibka suuqa kadibna waa ay soo baxayaan saddexdoodiiba waxaana uu imanayaa suuqii lagu kala iibsanaya fardaha kadibna waxa uu iibinaya waxaana uu ku baayacaya labadii faras magaaladii oo dhan oo labada yaaban labada faras oo quruxda badan ninkan saan horeydu kusoo sheegay saaxiibayaal magaaladii oo dhan ayaa saf soo gelaysa iyagoo yaaban isla markaana la yaaban ninkan labada faras ee quruxda badan ee magaaladan hore lagu arago wato isla markaa iyadoo lala yaabayay inta ayaa waxa uu arkayaa boqorka ayaa diirad ku eeganaya waxaanu arkayaa laba faras oo qurux badan oo suuqa loo soo iibgeeyey isla markaa boqorka ayaa ka helaya waxaanu odhanayaa waa in labada faras lay doonaa kadib ay soo daadegayaan waxaanu imanayaa suuqu ninkani ku iibinaya kadibna boqorka ayaa labadii faras ka qaadanaya isagoo si bilaasha uga qaadanaya kadibna wiilkii waa uu xanaaqaya waxaana uu odhanayaa maxaa dhacay sidaan kadibna faraskii yaraa ayaa soo nuugaya labadii faras waanay kasoo yaacayaan boqorkii ayaana dhulka ku dhacaya isagoo baalkii la socday ku cararayo kadibna ayaa uu dambas la gelaya wiilka oo faraxsanaya labadiisa faras ka haysanaya boqorka halkii isagoo cadhaysanaya waxa uu leeyahay wiilka yar waa in laysoo qabta dadkiina waa ay ku qososlayaan dadkii magaaladu kadibna boqorka ayaa aad iyo aad usii cadhoonaya isla markaa boqorka aad iyo aad ayaa u cadhoonaya waxaanu odhanaya ninka waa laysoo qabtaa la dilaana kadib mid la taliisa kamid ayaa la talaya si hoose isagoo wax ugu sheegaya waxaanu ku odhanaya wiilka yar iska daa wayna la yaabisa magaaladuna wayna soo wada eegaysaa kadib boqorkii taladii ninka ayaa u qaadanaya halkaas ayaanay ka baxayaan wiilkii yaraa sidaas leeg isaguna waa uu iska tegayaa kadib meesha waa lagu kala tegayaa boqorka waa uu seexanaya habeenka ku xigtay waxaana uu ku riyoonaya wiilkii waa boqorkii qasriga boqorka dhex jaasaya kadib waa uu cadhoonaya waxaanu odhanaya qasriga ka jaastaas iyo hala igu yeedho balcasuumad baanu sameynaya kadib xidiirida ayaa lagu eegaya waana loo yeedhaya wiilkii yaraa waxaana lagu odhanayaa maanta kaale waxa lagu sameynaya hadiyad baa qasriga lagaga dhex siinaya kadib dharkii ayaa loo soo labisaya waxaana loo xidhayaa wixii kadib wiilkii yaraa Johan waa isugu toostoostay boqorkii qasriga ayaana uu ka mid noqday waana uu faraxsayay isagoo aad iyo aad u faraxsan kadib waxaa loo soo galayaa dharkii qasriga ugu dambeyntii sheekada filinkeena wiilka yar waxa uu la hadlayaa boqorkii gabadhiisa waxaana uu ku odhanaya waxaan kugu darayaa wiil yar oo mucjiso leh isagoo la tashanaya saaxiibkiisii ugu dhawaa waxaana ku odhanayaa gabadhayda ayaan ku darsanayaa wiilka ugu dambeyntii faraskii yaraa ayaa uu Johan u mahadcelinaya waxaana uu ka mid noqonayaa boqortooyadii qasriga iyadoo gabadhii la siinayo filinkeena halkaas ayaa ku dhamaanaya.